عرس قيرو channel like subscribe بفكسي ومتقنا الظلم عقلية فضلا لها إن شاء الله تاسوي دم أعطيه سو أفجرنتي لما تي عدة بقول من دون تمجري سو ما بسيسو قفلي بنا مجرد نيروبي لو سميها أيه سحق أهنا لو جوجي دونا أيه أنت الصاد المينا إن شاء الله نيجي أيدين تعطي وشو حقنا وهو حان لا هاي صومالية إيميل بأجوكتان دعاء وادنكينا هاي صومالية هاي فربنا الصومالية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صومالية وعارك جوكتو وان سلامي وحنا ولد اللي سلمنا سلامك سوق ذي كشكيلاته وأولا ضعون لي الشكوبابا احنا آمين يحيى أصحابي أنت قلبي يرجع له عن الله وعافمات قضاء ولكن وعافمات قضاء واتان ما شاء الله. waxaan idin sheegayaa waan halka usoo fadhiistay hooyo Soomaaliyeed ama wiil walaalkay ah Soomaaliyeed oo mataqaanaa dulm iyo caqabado fadlan lagu hayay insha Allah taas way dhamaatay wayna soo afana dulm iyo caqabado fadlan lagu hayay insha Allah taas way dhamaatay wayna soo afjarantay لما تي عدة بقول من دون تمجري سو ما بسيسو قفلي بنا مجرد نيروبي لو سميها أيه سحق أهنا لو جوجي دونا أيه أنت الصاد المينا إن شاء الله نيجي أيدين تعطي وشو حقنا وهو حان لا هاي صومالية إيميل بأجوكتان دعاء وادنكينا هاي صومالية هاي فربنا الصومالية على صوت المي عجيب وحكوها الله هذا المرتلة حكمة ضيسان فهن أما فهمين dhiigayga u daatay buu yidhi dhiigayga baa u daatay intii hore loo dulmiyey laakiin dhiiggiisu wuxuu sababay mid dambe inuusan daadan halkaa maxaad ka dareemi kartaa kadabkoodii waa go-ay sheekadiina way ku daysay dhinac kasta way ka dhamaatay waxaan arkayay nin siyaasiya oo ka hadlayay oo lahaa baraha bulshada propaganda laga wadaa aad baan uga xumahay mas-uul Soomaaliyeed oo waliba nin macquul ah aqoon-yahana inuu saa u hadlo aad baan uga xumahay runtii ma jeclaysan waxaan ogahay mujrimka weyn Hebel Rashiid waxaan ogahay Hebel Rashiidow muuqaalada ka soo fulaya afkayaga iyo muuqaalada channelada yada ka soo baxaya tos baad u daawataa subscribe baad laakiin keligaa kuma xirnid hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed oo aad horey u dulmiday oo daafaha caalamka ku sugan iyo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad dulmiday iyo qaybta dulmigaaga ka dhidhidayba waxay ku sugan yihiin daafaha caalamka iyaguna wayna daawadaan adigu in lagu nacay waqtigaaga inuu dhammaaday kolba adigii anagu way sognahay hadda waxaad ku jirtaa dhuumasho baa ku jirtaa laakiin wala waadan dhuuman karayn bal commentiga dadka akhri ma ku ammaanayaan dadku mise waa ku habaarayaan wanaag haddaad leedahay halkaasaad ka garan kartaa haddii aad leedahay dadnimo ama aad wax wanaagsan qabatay commentigaad ka garan kartaa waxa dadku qorayaan laakiin haddii aad is aragtid kolba dee qofku haddii uu waaw yahay oo dhiigga islaamka uu xalaalaystay oo wax walba oo xaaraana uu xalaalsaday waxa weeye waxaas wax kuma qaato rag badan oo adiga kula mid ah baana jira Axmed Rashiid horey waxa u jiri jirtay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba leh iyo ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaanba lacagta baada ah aad ka qaadid dhowr jeer baa la isku dayay in xilka laga qaado laakiin lacagta waxaad ku badbaadi jirtay maadaama wadankaasi uu yahay musuqmaasuq number 1 lacagta baada ah oo iyaga ka qaadid inaad Kenyaanka isaga laaluushid taasna hadda way soo afjarantay waxyaabihii
inta barnaamijtaada aan ku dhex jiray igu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa gabdha maanta aan joogin Kenya oo tiro badan oo aad isku day samaysay ama dalka ka bax ama ani idooro oo kaaga tegay Kenya adiga inta ay mustaqbalkooda waayi lahaayeen cajiib macnaha xataa gabdha kaama fakan waa wax la yaab leh laakiin gabalkaagii waa dhacay Kenya tuulo kasta iyo degmo kasta oo Soomaalidu inta ay degta ah NFD farxad iyo alalaas bay ku jiraan because dhib baa ku haysi qofka bini aadanka ah inta ugu muhiimsan waa madaxa magaalo madaxdii oo ahayd Kenya isli oo iyadu Kenya kasi ah madaxii Nairobi ah baa dulmi iyo dhibaato iyo silic waxaad ku haysay dadkii Soomaaliyeed ee ganacsatada ahaa kuwii yaryara oo baradhada dhiganaya baradhada iyadoo cashuur laga qaadayo baad waxaad amar ku bixisay ciyaalka adiga kuu shaqeeyana in ay cashuur siiyaan baad ay ka qaadaan cajiib waa islaamo buushash oo baradho gala waxyaabaha la yaab kale bay ka mid tahay in iyadoo cashuur laga qaadayo tii dawliga ahayd haddana cashuur kale baad kale oo garab socota oo weliba taa 3 5 10 ka badan aad ka qaadaysid oo adiga lagu sii keenaya carruurtaasina ay wax kale aysan ku samaynin darooga waxyaabo badan baa idin soo wadaa fanaaniin la yaab leh oo maanta aad taqaaniin iyagoo gurguranayana way idin soo wadnaa hebel oran maayo dhaawacoodii iyo waxoodii muuqda oo weliba sawirra laysaga qaaday iyagii iyo mooryaanta gacantiisa midig iyo tiisa bidix iyo ilkihiisaba ah oo uu isagu ku shaqaysto intaba waad naga heli doontaan muuqaalkan haddii ilaahay idmo muuqaalka ku xiga waxaan leeyahay waqtigaagi wuu dhammaaday bal hadalka walaalkeen aan dhammaysano insha allah dhiigayga aadiin daatay guushu waa xaggeena waxaan leeyahay Soomaaliya meelba aad joogtaan ducada waa dhankiina hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed la soo dulmay gabdho fara badan ayaa la soo dulmay wiilal fara badan ayaa la soo dulmay laakiin baabkaasi uu soo afjarmay tanaana u dambeyn doonto insha allah aad aan idin salaamaya waxaan u dhimanaynaa Soomaalinimo maxamed amiin sheekadiisi waad arkayseen farxad iyo wuxuu inoo sheegay naruuriya barwaaqo iyo nimco aan dhammaan doonin insha allah wuxuu u bishaareeyey hooyooyin Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu dhibtooday